السلام عليكم ورحمة الله. قصة waxay ku saabsan tahay maamo dhowr caruur dhashay oo maamo weyn ah maamada waxay ka cabanaysay gurigeeda in caruurteeda aysan amar qaadanaynin dagaal joogto ah guriga uu ka jiro nadaafada guriga si kasta loo hagaajiyo ay halaabayso taa waxa u sii dheer biilka la siiyo reerka in ayadana bishii aysan dhamaanin ay go'ayso wadaadkeedana wada shaqo fiican haysta waay oo lacag fiican siiya markuu biil fiican siiyo bishii oosan dhamaanin baa wuxuu ka dhamaanayaa biilkii ka go'aya haddana haddii lagu soo daro sidoo kale bisha ma gaarsiinayso wixii dhan way iska dhamaanayaan taa waxaa u dheer guriga mashaakilka ka jiray wixii guriga la keeno waa dhumayaan muddo kadib baa la helayaa si kasta dii loo raadiyo guriga lagama soo dhex saari karo mashaakil fara badan oo ay ka mid tahay caruurta inay madaaris lagu kari waayo kadib waxay tiri maamadii waxaan dhageystay raadiyaha ka dhageystay wadaad ka sheekeynaya fadliga ay leedahay iyo faa'iidada leedahay suuratul baqara iyo guriga lagu akhriyo inay barakoobayo waxay bilowday maalinka ka dambeeyo inay suuratul baqara guriga ku akhriso caruurteedana ku amartay inay suuratul baqara guriga ku akhriyaan kadib waxaa dhacay dhowr maalmood markay wadeen maamadii waxay tiri xilli duhur ah baa hurdo iyada qabatay waan seexday waxaa ilaahay riya ku tusay naag jin ah oo guriga la degnayd oo madow oo caruurna wadato oo guriga kasii baxayso waxay tiri maxaad ahayd guriga maxaad ka rabtaa markaas waxay tiri jin baan ahaa guriga kula deganaa ninkaan kula wadaadi jiray caruurtaan kula wadaadi jiray dadka anaa isku diri jiray dhib badan baan guriga ka geysan jiray suuratul baqara baa nagu karkariseen oo nagu gubteen waana idinka guurnay waana idinka qaxaynaa markay hurdadii ka soo kacday waxay tiri wixii markaa ka dambeeyey waxaan bilaabay qabow iyo deganaansho gurigiina wuxuu bilaabay gurigana arrintiisa way toostay nadaafadda way toostay raashinkii biilka uu keenay wadaadka ayagana bishii dhammaanin baa raashinkii weli uu sidiisa u yaalaa rasuulka ilaahay run buu sheegay markuu yidhi suuratul baqara fadligeeda uu ka sheekeynayo oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam akhduhaa baraka wa tarkuhaa xasra walaa tastatiicuha albatala guriga suuratul baqara lagu akhriyo ama qofkii suuratul baqara akhriya qaadashadeeda baqra uu qaadanayo uu ku barakoobayaa ka tegisteedana uu ka shallaynaya qofka walaa tastatiicuha albatala saxarada kuwa waaweynna batala waxaa la yidhahdaa saxarada kuwa ugu soo sareeya ma kari karaan qof baqra akhristay sidoo kale xadiiska rasuulka wuxuu ku yidhi salawatullahi wasalaamu calayh guriga suuratul baqara lagu akhriyey 3 beri shayaatiin ma soo geli karaan walaalayaal videogan u sheergaray waxaa laga yaabaa qoysas badan oo la dhibaataysan xanuunadaas iyo guryahooda baraka darada haysata inay suuratul baqara akhriyaan waxaa laga yaabaa in videoga markay arkaan ay bilaabaan suuratul baqara marka u sheergaraya